Qarax xoog leh ayaa goor dhaweyd ka dhacay agagaarka isgoyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan meel aad ugu dhow barta koontarool ee laga ilaaliyo wadada aadda dhinaca garoonka Aadan Cadde. Nooca qaraxa oo ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lagu bartilmaameedsaday sargaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya, balse waa uu ka badbaaday sida ay ilawareedyo dhanka ammaanka xaqiijiyeen. Gaari nooca aysan xabadu karin oo uu watay sargaal lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska Soomaaliya ayuu haleelay qaraxa xilli uu marayay agagaarka Hotel Afrique. Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ilaalada sargaalkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxaasi. Maxamed Daahir ayaa horay taliye uga soo noqday qaybaha saldhigga galbeed Wiyo Cadde iyo saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahin kama aysan bixin qaraxaasi caawa ka dhacay Muqdisho ee lagu bartilmaameedsaday sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya.